hadduu yidhi photoshop dee aniguna kayga waa photoshop. kulanti waan daawadayaasha ku xiran janalkan Shabalala Tube ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa kaniiskii weynaa ee Fuad Blue Makeup oo afka furtay sheegana inuu xiriir jacayl kala dhaxeeyo fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac uuna yahay ninkiisa asaga qaba. muuqaal sir ah oo baashaal ahna soo bandhigay. alfanaan Nimcaan Hilaac muxuu ka yiri arintan inta aanan ku bilaabin faafahinta qodobkan xasaasiga ah. haddii ay tahay booqashadii ugu horeysay ee aad ku timaado channelkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe aad saarato furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada aan halkan ku soo baahiyo. gudoomiyaha ururka lagaroonayaasha Soomaaliyeed Fuad Blue Makeup oo afka furtay sheegana inuu xiriir jacayl kala dhaxeeyo asiga iyo fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac. sidoo kale kaniis Fuad Blue Makeup ayaa yiri Nimcaan Hilaac waa ninkeyga aan isqabno. subhanallah. sidoo kale waxa uu sheegay in heesta jaceylkii qabyoobay in asiga uu u qaaday wuxuuna bartiisa Snapchat-ka soo dhigay muuqaal sir ah kaas uu ku sheegay inuu yahay asiga iyo Nimcaan Hilaac oo wada baashaalaya. waa sida uu hadalka u dhigay. haddaba daawade ila daabo marka hore muuqaalkan been abuurka ah ee uu Fuad Blue Makeup ka faafiyay fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac. Alba marmaysan heesta aan loo qaaday. You cannot believe my honey. Let me give you one tip. Just quick. hagaag haddii aad muuqaalka si degan u fiirsatay waad dareemi kartaa in qofka muuqaalka ka muuqda uusan ahayn fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac. kaniiskana uu rabo inuu fanaanka sharaftiisa inuu mariyo buraash xaar leh. ninkan kaniiska ah ayaa markiisii ugu horeysay wuxuu ahaa qof nin ah laakiin wuxuu isku bedelay sidii dumarka isagoo samaystay xubnaha dumarka oo kale. magaciisana waxa uu ka dhigay Samsam Raage oo ah magac dumar ah. sidoo kale 2 maalin ka hor ayaa sidan si la mid ah waxaa loo fadeexeeyay ninka qabo fanaanada caanka ah ee Farxiya Fiska kaasoo kuwa kaniisiin Soomaaliyeed ah ay soo bandhigeen muuqaal ay ku leeyihiin ninka aroosay Farxiya Fiska waa kaniis wuxuuna ka mid ahaa xirteena. maalmahan waxaa socda fadeexeen ay wadaan kaniisiinta Soomaaliyeed kuwaasoo ay ku soo beegsanayaan dadka magaca iyo sharafta ku dhaxleh ummadda Soomaaliyeed. haddaba haddii aynu nahay bahda Shabalala Tube waxaan idin xaqiijinayaa in muuqaalkan social media Facebook YouTube-ka Snapchat-ka meel walba la wareejinayo inuusan ahayn fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac. fanaankana uu yahay qof magac iyo sumcad ku dhaxleh ummadda Soomaaliyeed. qalbiga nudihiisa nafdiga yoorka niyada saldhigeeya intii naxliheedhe naxaybigu hayse igu qaade intii nabarkayga dhibkayga ku naaxda intii nabarkayga dhibkayga ku naaxda aniga nafsadayda intii neceb maanta anaa noloshooda samaxay noloshooda labtaa u nadiifa naqdaanu rajeeye nimcaan tegale. waad ku maasan tahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawade. haddii ay tahay booqashada ugu horeysay ee aad ku timaado channelkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe aad saarato furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid.